kulanti habboon idil ahaantiin badaa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dabagalka fanka barnaamijkeena dabagalka fanaaniinta iyo falanqaynta maanta waxaan ku soo qaadan doonaa fanaanada masraxa ama fanka ku joogda tursiyadeeda fanaanada caanka ee Nadiiro Nayrus ayaa ah fanaanad reer Muqdisho fankeedana ka soo hana qaaday caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waana magaalada Muqdisho Nayrus ayaana waxa ay la soo baxday qoobka ciyaar waliba mid dad badan soo jiitay qoobka ciyaarkaas ayaana ahaa mid la ruxayo horaadada ama waxa Soomaalidu u taqaano naasaha iyo dibka Nadiiro waxay hormuud u noqotay fanaanid badan oo ka soo muuqday shaashadaha fanaanada ayaana waxa aad looga jeclaa guud ahaanba gobolka Banaadir Nadiiro ayaana mar waliba oo laga wacdo aroosyada iyo xafladaha gaarka waxa ay ka dhigi jirtay wacdaro waaliya Nadiiro Nayrus waxa ay la jaan qaaday fanaanad kale oo ay saaxiibo noqdeen taasi oo ahayd fanaanada caanka iyaduna ee lagu magacaabo Shaadiye Sharaf oo labadooduba si waali ah u shidi jiray xafladaha iyo aroosyada Nadiiro iyo Nayrus sharaf leh inta badan waxa ay ahaayeen laba gabdhood oo sharaf leh oo aan marnaba kala harin saaxiibo dhowna isku ah showyo badan ku qabtay guud ahaanba caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya waxa showga badan ay ku soo qabteen gobolada dalka iyo maamul goboleedyada safarkii ugu dambeeyay waxa ay soo wada aadeen dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo ay show ku qabteen showgaas oo lacag kaga soo xarootay laakiin markii uu Muqdisho lagu laabtay ayaa waxa soo kala dhex garay muran dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan lacagta arinta waxa galay dad magac ku leh fanka Soomaalida laakiin dagaalkii dhex maray labadii saaxiibada ahaa ee Nadiiro Nayrus iyo Shaadiye Sharaf waxa uu saameyn ku yeeshay Nadiiro Nayrus lafteeda oo reerkeeda ku dumay kuna kala tageen ninkeedii Nadiiro ayaa saaxiib iyo ninkeeda ku weysay Muqdisho ayay iskaga soo carartay balse Nadiiro Nayrus arrinkaasi markay dhacday waxay ka soo socdaashay magaalada Muqdisho waxa ayna tagtay maamulka Somaliland oo ay salaan iyo bariidin kaga dhigtay hees lagu amaanayo maamulka Somaliland Nadiiro markay ay Hargeisa timi waxa ay ka mid noqotay kooxda ay hogaamiso Khadra Salimo oo dadka qaar u garanayaan kooxda shalmadaha ama garbasaaraha Nadiiro in muddo ay Hargeisa ku noolay iyadoo garooba isbuucan ayay waxa soo shaac baxday in wiil ka mid ah DJ ugu caansan magaalada Hargeisa ay iskuulsan rabaan kaasoo baraha bulshada la isla dhexmarayay iyadoo tuhunkaasi jiro ayay Nadiiro waxa ay soo qaaday hees jacayl ah oo ka hadal heeskeedii hore ahaa heesta ayaana ah laba qayb oo kala ah mid waa jacayl cusub midna waa kii hore daawade haddii aad fikir inoo hayso hoos noogu reeb fadlan channelkana subscribe saar salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh